السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواada janaalkeena quruxda caruurta waa janaalkeena waa wada janaalkeena anakoo idin jecel idinkoo inoo qabo hilow waa walaashiin oo mar labaad iyo mar saddexaad idin dhaheys kusoo dhawaada niyad saafi ah gacmo furan insha Allah taala barnaamijyada iska soo daba dhacay ma fahanteen dulqaad hala muujiyo sabirkiyo dulqaadku waa sad lagu duceystay waxa idin ka codsanayaa subscribe share like comment wixii tali iyo tusaale waa dhankiina haduu ilaahay iraado isgarab istaagno walaalahayga sharafta leh waa idinku faanaa Soomaali Maxamed gacmihiina waxa waaye iska soo fududeeya marka waa kaasa alxamdulillah ala kulli xaal ramadaanul kariim meel kasta aad joogtiin farxad igu sooma kuwii bashbash barwaaqo ku dhameystana Allah naga dhigo maanta waxaan ila wadaagayaa sheeko yar ah qacdiga siina ma fahanteen la socod wanaagsan dhageyso hadaa ka heshan walaalahayga sharafta leh hadaa ka hesha laag idinka codsanayaa subscribe ne igu caabiya halis caabiya insha Allah sheekadana waxay ku bilaabanaysaa sida tan waxaa jira saddex nin oo saddexdoodaba beenaalayaal ah saddexda waxay isku faaneen been markaas midkan wuxuu yiri anaa ka been badan markaas uu yiri wallahi anaa ka been badan waaye soo daa beenta haysid midka koowaad wuxuu yiri beenteedu waxa waaye hada koora safar aad ku lahaa safar markaa aaday yaraan noqdo safar aaday safarkii aad ku lahaa soo u socdo dhabo ama dariiq ama jid ama qof kasta uu yaqaana wadadii ay ugu dheeraato ku lahaa wadada inaad u duubto ku lahaa garabka saartay meesha reewa tagay kii labaadna wuxuu yiri laa ilaarna musni waxa been ama fataala ta wallahi billahi waxa waa ii sheekadeeda ka shidano ay waa soo daa kii labaad soo booday markaas uu yiri inuu meel ku ciyaaro kula geeda kor geedka laanta ugu dheerad markaa koray waxa maqlay kulaha alalaaskiya maqlay alalaaska kulaha alalaaskaas ma taqaan ma yaniyo ma aqaan alalaaska muxuu yahay aroosa camal oo kii kala dhahay markaas alalaaskaas waxa kula ayeeyadii la aroosay ayeeyadii arooskeeda waa alalaaska dhacay marka kii labaadna waa kaas marka beenal isku faano ma fahanti kii saddexaad wuxuu dhahay dhiish caana la igu shubi jir markaa yar oo meel taala arkay kula caaniyo ku ilaawday markii ku ilaawday dhiish awoora cunay dhiish waa ognahay qoray waxay ka samaysantaa moogta awoora caani bisa qabto kula geeda surtay marka saddexdaas niyaa been badan asxaabe wallahi waa sheeko fani ah hadaa ka hesha like subscribe share like comment wixii tali iyo tusaale dhankiina saddexdan nin qofka ugu been badan ee dhankiina le waa kale aniga saddexda waa ka qeylay ma fahanteen idinkana waa ila soo wadaaga bal waa mahadsantihiin